ورحمة الله وبركاته وحين ربعنا كهلا من كان جيجة أما خنيس اسبدلي عريش أحمد ربع لا يوقف صلاة من كان نجا جرنانا نوردين بالله راحة مروح الشيء تأكشي يمكن واحد نقل عيبه قاعدين بوشي جناي من غير جسوها wuxuu yiri waxa ay kufsaday rag labiyo toban jir baan ahaa okay ma wax loo dhici karaa laakiin waxa mucjisada ah ee dhibaatada ah ee yaabka leh waxa ay tahay ninka uu leeyahay wuu i xoogay ama wuu i kufsaday runtii markaan indhaha la iska tirin waa in yar weeyaan waa aad u yar oo isagaba ka yarba marka waxaan leeyahay nuurudiin sheekh madar baa lahayd Somaliland baad ku soo barbaartay sax garatay maaha maanta inaad ceeshkii Somaliland aad candhuuf ku tufto masaajidada ka sheegto tira dhakhtaradii baa la igu kufsaday oo masaajidadii baa la igu kufsaday oo iskuulkii baa la igu kufsaday horta taas waa mid ku doqonnimo weligaaba doqon baad ahayd oo waa tii macallin islaamba oo macallimada ninkan aan idin qaramay iskuulka uga jirtay deetna waxa jiray inaan kaabay jiray horta inaan nacsu haabay tro isla xoogiyo quwadna ilaahay siin kana dhuwan baad arkaysan oo gabadh iska dhigay waan idin tusi doonaa ayaad arkaysan laakiin ninkan xoog weyn buu ahaa kolba xaafad buu shaqayn jiray Hargeysa anagu reer xawaadaan ahaan marka waxaan ku baranay gabadh buu shaqayn jiray agtayada ahayd marba xaafad buu ka tagi jiray dhariga ka cuni jiray waxa loo yaqaan nooca maraq dhadhamis baa la oran jiray marka wuxuu keenay in uu raahdo inama ay kufsaday Hargeysa la igu kufsaday Hargeysa la igu farxumeeyay masaajidadii baan tagay masaajidadii baa la igu farxumeeyay tabliiqi baan noqday gaalo muu shaqayn jiray markaas xaafadaha Hargeysa ka dhex shaqayn jiray taalo muu shaqayn jirin Cabdiraxmaan Sheekh Caliyo wuxuu shaqayn jiray xaafadaha Hargeysa ka dhex shaqayn jiray ninkani kadib hooyadiina waxa la yiraahdaa foosiyal ka cas waxa islaamiga ku jiray fakinka xitaa qabiilada uu sheeganaya ninkani ma aha ninkan waa garac weeyaan waa caruurii ku dhintay ku dhashay fakinka ku dhashay khaniiskan dadka aaminsan horta waxa weeyaan waa islaantan abartan weyn baan soo saartay oo ku tiri war ka soo kac meesho kaalay doonaysa inay bulshada waxa weeyaan habar la siyaanada teeda kale waxaan sheegay dadka reer xamarka ee ku faraxsan ee ku barbaraaraya Somaliland buu ayaa nin lagu kufsaday ninka kufsaday waa inaan yararta tawle inaan ka yari uu leeyahay inaan ka yar bay xoogay labiyo toban jir baan ahaa labiyo toban jir dawaal ma aqli loo xumaantii basarka runtii kala garanaya markaynu aynaan deesyeelin ninkan uu yiri ninkaasa hebel baa ii farxumeeyayna dawa ina yaroo leeyahay wajigiisa waad aragtay hadduu labiyo toban jir haasna labiyo toban jir buu ahaa marig waaweyn baa xumeeyay ma odayaal baa xumeeyay la dabilaa calayka aqligiina la kaashado oo markaasay durbaanka soo garaacanaya horta reer xamarka waxaan u sheegayaa anigu wali Facebook ma soo kulin live ah waayo waxaan nabcaan jiray dambiga laakiin dalkayga hadda waxaan ku tashaday inaan difaaco waayo nooc kasta ayaa Somaliland faraha la soo galay nooc kasta ayaa Somaliland raba in ay xumaanteeda baarbaaraan kiniisadba mar reer Hargeysa laga furaya waad ogeydeen kiniisaddu waxa ka dhacay reer xamar oo dhan waa yahuude waa gaala yar yar ee gaale ahaayeen hala qabtooy lagama furi karo oo waxaas la istaagay ilaahay baa ka soo dhex saaray mid oday jareera nabi ku sheegay waa kan nabigii wala inta doonaa alayhi salaatu wasalaam yiri waa kan nabigii maantana deeyba u raaceen leeyihiin habrahoodii Hargeysa isaaq waa lagu farxo isaaq waa mala farxmay isaaq waa malaynaya horta isaaq horta wadriyadii reer Sheekh
soo xil garatay ma midaan ka xumaaday waxa weeyaan nacas kastin annagana lagu soo noqdo عبد السمد عليو ما حتى نوع راعسن نوع سنيسيدا ملا تاغيرسن با tan marina qudhaada baahde wadada loo furay amar heer gaalkacyaada ma iska day waa kan ninkii nabiga sheegtay inuu nabi baan ka kameeyaan waa idga hadli weydeen maxaad ka hadli weydeen maxaad uga hadli weydeen reer Soomaaliya reer Sheekh Isxaaq in daba dhigay maxay in daba dhigay war deeyo dhabeeyay ka soo baxaa oo kii kitaabka Ilaahay beeniyay wuxuu afweyne waa kii aayadaha Quraanka Ilaahay suuratu Nisaa beeniyay koonfur ka soo baxay jaa fatxiye score idinka ka soo baxday beeniyay kamid Jubaland idinka ka mid tahay oo waxay ka soo dhex baxday koonfur طبعا سروابة الشيخ ينقول لغيستان ماما مليون وحويا نويدين لدان علمك يو عقلك يدنكو علمك يا عقلك بدن هاتها وحان لشيء كريم كغشا كيسا كان حسي قبوينين انت هاد مانتا السومال لانكو مشغولة سانية هرقيسا واني كلو كفصبي كان حد بهد ويدين كفصنا يدك لو هرينين الحمر كان شيء يضد كان مجنك تصاهية السومال لان فراك قادلة السومال لان فراك قادلة بن شيريا كاريمك واحد يصبح ذي متر على إمي كان أركيت على ياوي متر على ناقبا يكفصتي هولي ninka nuuridina waxaan sheegayaa oonay nuuridino hadii Soomaaliland ku caneyn weeyday isaaqna dabada ka laaday wadankana laga amstafriyo orad lagaaga saaray inaad maanta Soomaaliland ku soo kala jeediso intay lacag ku soo siiyaan gaaladii koonfure inta lacag ku soo siiyaan diinta ka baxay adigoo diintii ka baxay ma samaystay oo geey noqday ayaa dad diintii nabigii aad sheeganaysaa diintii muslimku meeda ilaahay nafka ka dhig تيدا كلام حنا غير كان غير كونفريت كا أنا جو حبي جمع جل أبجال أنا جو ما كلا خان قد كان غير حمر كان غير كونفريت قد يدوين بانو قانا قال يريا سنجروري يقفر علس أنت سنمو كلا قانا ولا وحنا قانا أبجال ولا أب ورانا وحنا هرت Soomaaliland waxaan daba dhigay dadkana rabaa waxaan daba dhigay Soomaaliland ninkii eerayga ahaan xuuri ninka garam leeyahay xuuri inagana waa farxadeena wuuri Soomaaliland lagu sheegay ninka Soomaaliland wuuri waa murugadeeda inay ninkaas wax ku sameeyay orta saqajaan kooda midna ka soo dhaxaa sheerkaas inay sheegaan ko furban ka hadlaya isku wada qaad waxaan reer Soomaaliland ahayn Soomaaliland miyaad aragtay wali wax reer Soomaaliland ama dhulbaanta noqdo ama isaaq ha noqdo ama gabooye ha noqdo ama ciise ha noqdo ama dhulbaanta cidday doonta ha noqoto ama samaroon ha noqoto miyaad aragtay cid Soomaaliland oo inta ka soo dhex fadhiisato ka ay tamaysa oo xumaan ka sheekeynaysa oo wax jiirku diido oo dhaguhu nacaan wax ka sheekeynaysa ma aragtay dadka calanka buluuga alistaan ahayn waxaan idin sheegayaa waligiin bes ka baqbaqleeya maanta salaad kuna soo gelin laakiin waxa igu kalifay caray ku qaraaday way nacas kastaaba Soomaaliland ilaa khaniisadii ba afkana la soo galaya ilaa gaaladii habriini gaalada hay diinta ka baxay taasoo kan wax loo dul qaadan kara maaha horta dad doontaan midnimo Soomaali waa mid Soomaali mid ma hayno shanbeh midnimo anaga keenay annaga wanaagoo dhan aan sameeyno dhan baad noo qoorilaayay waxa badihiin boqol waraabo intay meel ku xiran yihiin gaajiyo macluulahay soo xabad sakaara la soo agmariyay sidee noqonaya
saasun bay ugu yaacayaan dee saasunba somaliland kusoo cararaysaa